بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام والسراج المنير، سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal fadlan waxaan idinka codsanayaa codkaygu marka uu idin soo gaadho ama aad maqashaan inaad iga gaarsiisaan walaalkay xuseen cali. xuseen caliyow, horta marka u horeysa waan ku salaamayaa. marka labaad waan kugu hambalyeynayaa inaad waano iyo nasteexo aad u soo jeedisay dadka walaalaha ee meel midaata wada degan ay shayaadiin isku darayso. ta saddexaad, walaalkayow, ma waxaad baraarugtay marka uu dabku gurigaaga soo galay, marka ay jufadaadu halka ay degan tahay ay qarka u saaran tahay in dabku uu qabsado, uu dhigdaato, ayaad soo baraarugto lexjecla kaa qabatay. ma humid, waad fiicanta. haddaa marba lexjeclada leedaho dhiig kugu jiro, waxaan ka baqayaba inaad dhiig lahayn oo xataa dadkaagu lalaynaayo inaad ku daawan doonto. 10 sannadood ayay fursad ku dhaaftay dagaal colaad la kala dhex dhigay ciisaha galbeedka city degan iyo qoomiyadda canfarta. dagaalkaasoo dhibaato badan keenay, barakac, xasuuq, dad dhan oo guryahoogii laga soo saaray, dumar naasaha la googooyey, dhaawacii markaas ilaa hadda wax dhaya ma jirto. adoo fursaddaasi way ku dhaaftay inaad ka hadasho oo reeraha u hadasho ood waaniso sidaad u waaninaysa maanta dadkaaga. fursaddaa way ku dhaaftay. aad baan uga xumahay in maalinta aad ka faa'iidaysan weydo inaad dadka oo dhan u wada hadasho si mid ah, laakiinse maalintaa baan ku ogaaday inay dadku isku mid ku ahayn adi. maalintaas ayuu ilaahay ku khashafay. maantana mar kale haddana waa ka ilaahayna tusaya waxaa tahay halkan noo taagan tahay. etoobiya dagaaladii ka dhacay ka kaalay, jabuuti tan ka socota tan iyo 1977 dulmi, tacaddi, cagajuglayn, dad la iska xidhaayo si bareer ah, dhagar iyo dad la iska leer dhabarka laga tooganayo, khiyaano, xataa adigoo heer aad gaadhay inaad ka lacagayso. adigoon ku ogahay xuseenow shalay halkaa taagnayd inaad qaraabanimo shaqo lagugu qoray, in qaraabanimo lagu exdo xoolihii shacabka reer jabuuti ay dalka jabuuti deegaan ahaan ka soo jeeday iyo kuwii u dhashay xoolahoogii ayaa adiga qabyaalad lagugu siiyey. taasna waxay samaysay inaad ka aamusto oo afkaaga xidhato cadaalad darrada ka dhacaysa jabuuti. dadkan laysku diraayo, la kala diraayo, dadkan xoolahooga ummad kale gubbo lagu siinay si isku layso. ma waxaad moodaysaa xuseenow ilaahay in la shidaari karo, ilaahay in loo dhigdhigi karo, afmishaarnimo in ilaahay loola iman karo? maanta se halkaad u taagan tahay iyo halkaad u joogto ummadda reer jabuuti, gaar ahaan beesha ciise, way kuu jeedaa, way ku arkaysaa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala uuna kaa baray cidda aad tahay. xuseenow, diinta ilaahay ummadoo dhan waa u siman tahay. waad og tahaan u malaynayaa, haddaad moogan tahay mooyaan, in qur'aanka kariimka ah inta jeeruu ilaahay leeyahay yaa ayuhannaas iyo yaa ayuhalmu'minuun, yaa ayuhannaas baa ka badan. dadkow, insaanow inta uu leeyahay iyo mu'miniinow inta uu leeyahay, uu ilaahay u baaqayo inta uu dadka u baaqayo. ilaahay midnimada u baaqa, ka diinta haystiya ka diintiisa haysan, ka gaalka ay ka muslimka ah. laakiin adiga kuma sinno dadku. adiga reerkaaga unbaa kuu muuqda,
inaan lexjeclo ka leedahayna waana tustay halkaa kuma xumidba inaad lexjeclo ka yeelato naftooda aad u baqdo waayo itaalkooda og tahay daalimiintan jabuuti haysta adigana mishaarku siiya sargaal sare inaad sirdoonka jabuuti ka tahayna waanu ku ognahay aflagaadayga ma ah halkaa taagan tahay baan maanta nooma caddaatay un si fiican bay noogu caddaatay horaanu sii ogeyn laakiin ilaahay bannaanku ku soo dhigay labadaa nina hareerahaaga dhigay iyo kuwa kaa hooseeya dhammaatiin shariikaa wada tihiin oo reer jabuuti markay noqoto waad u heshiisiin gaar ahaan kuwa deegaanahaan ka soo jeeda maanta inay ku bartaan buu ilaahay wakhtigaa ila sugay anna waan ku arkay indhahaad kala qaadi kar laade markaa hadlaysi waayo waa isla yaaban tahay waxaad cuntaad garanaysaa xoolahanaad haysatay yaa bakhaaradaad ku leedahay somalilan bakhaaradaad ku leedahay booramiya hargeysa jigjiga ku leedahay soomaaliya halkii ka keenta xoolaheeda jabuuti bariiska jabuuti oo dhan lagu xidhay waan ognahay waan kula soconnaa waan kuu jeednaa xuseenow xoolaha reer jabuuti iska soo celi ubadkaagaad ku korisay adiga waxaad qaadatay soo celi markaasaad ummad hor iman kartaa wax u sheegi kartaa ummadda reer jabuuti waxaa tahoo dhan way garatay wayna ku baratay intii shiki ku jirayna xuseenow ee kaa shikasanayd maanta unbay ku aragtay maantana ku qarciya go'aan qaadan ilaahay lama khiyaami karo qulubtu dalacdaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas maanta konton sannadood soo idinku xoolihii dalka ma haysatiin heer sidaad socotiin soomaha kibirna xaggaabaa taagantihiin laakiin saa un ahaan mayso wakhtigiini gabagabadiina soo dhowaatay marka xuseenow aflagaada maahay waaqic baan ka hadlayaa waa xaqiiqa wey caddeenna waxaan ugu furay inta bakhaarada meesha ku yaala waan soo dhigi karnaa magacdooda laakiinse uma baahni haddii laga maarmi waayese waan soo sheegaynaa xoolaha reer jabuuti ayaad ka lacag hesay kuwanna maalinta ay fashilmeen ee godkoogii biyo ugu soo galay ee ilmaadeeradaaya ayaad u gurmanaysaa soo maa way godkay kaa soo saareen hadal bay ku yidhaahda ilaahay daalimiinta kuwa u gargaara wuu sheegay qur-aanka kariimka ku sheegay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum annaar ha u janjeerina garab ha siinina daalimiinta naar ku soo socotaa laga yaabaa inayni taabato laakiinse adu waad dooratay inaad u hiiliso dulmi falayaashan qaraabadaada ah maantana lex jeclo awgeed baad u hadlaysaa 10 sannadoodna fursad baa ku dhaaftay 48 sannadoodna jabuuti cadaalad darrada ka socota ayaa ku dhaaftay inaad ka hadashay imise fursadood ayaad seegtay ilaahaga u toobad keeno ummaddanoo dhan si midaata ugu hadal haddii ay daacad kaa tahay haddaad qowlka ilaah iyo qowlka rasuulka aad faafinayso ay daacad kaa tahay xuseen caliyow maa itiri baa meesha taala innii naasixun lak laa uriidu minka jazaa'an walaa shukuura haddaad maanta halkaa isu laysaan waa dunuubtiinniibaa isu kiin dartay ogaada waa dembigiinnii gudubtii ilaah iyo nebi maxamed iyo diinta aad ka gasheen masaajidiiba agtiinna faariqoo cidna ayna gelaynin dagaal waxba ka faa'iidi maysaan dagaal ninka ku dhinta dagaal qabyaaladeed iyo dagaal casabiyadeed waa kii nebigu sheegay yidhi alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar kan la dilay iyo ka wax dilayba labaduba waa naar bay ku jiraan buu nebigu yidhi dadkan dhagaagaalaha ee meeluu jooga aad garanayn waxa uu ku nool yahayna aad garanayn ma sakhraanba ma qof waalanba ee halkaa intuu soo fadhiisto afku doblaha ee ummadda maaragtaan ee qoriga dabka dhex watay ummadda dabka ku hurinaya walaal ha dhegaysane kada ha dhegaysan walaalayaal mundaqadaas galbeedka somalilan meelaha wada dega waa dad 3 xaq bay isku leeyihiin 3 xaq xaqii islaamnimaad isku leedihiin xaqii ehelnimo ayaad isku leedihiin xaqii jaarnimo ayaad isku leedihiin